wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareey ayaa ka qayb galay kulan degdeg ah oo isugu yimaadeen wasiirada warfaafinta maamul goboleedyada wariyaha Maxamed Cabdi Xakiin Xirsi ayaa warkan inooga soo wasaaradda warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada ayaa shir wada tashi ah ku yeeshay magaalada Muqdisho kaas oo looga hadlay iskaashiga labada heer ee wasaaradaha gaar ahaan dhanka wacyigelinta. shirka waxaa ka qayb galay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareey, wasiirka warfaafinta Puntland mudane Cali Xasan Axmed, warfaafinta Koonfur Galbeed mudane Ugaas Xasan Maxamed, wasiirka warfaafinta Galmudug mudane Maxamed Aadan Cusmaan, wasiirka warfaafinta Hirshabeelle mudane Cabdiweli Maxamed Cabdi, mas'uuliyiin ka socota dawlad goboleedka Jubbaland, agaasimayaasha guud, madaxda warbaahinta dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada. wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareey oo shirka furay ayaa sheegay in shirkan uu qayb ka yahay shirar wada tashi ah oo ay wasaaraduhu si joogto ah u yeelan jireen. wasiirada iyo agaasimayaasha wasaaradaha warfaafinta ee dawlad goboleedyada ayaa shirka si gaar ah diiradda ugu saaray horumarinta wasaaradaha iyo hay'adaha warbaahinta ee heerka kala duwan ee qaranka iyadoo lala wadaagayo khibradaha iyo kheyraadka la heli karo. waxyaabaha shirkan lagu lafaguray waxaa ka mid ahaa mideynta dadaalada hirgelinta wacyigelinta la xiriirta arrimaha xagjirnimada, argagixisada, dawlad wanaagga, doorashooyinka, dhamaystirka dastuurka iyo arrimaha bulshada iyadoo la raacayo istiraatiijiyadda qaran ee wacyigelinta oo ay wasaaraduhu ansixiyeen sanadkii hore